oo dadka dhiiga iyo kaadida la kala miiraya madaxweyne mar dambe yaanay damiirkayaga qaadin oo aanay calooshana xanuujinin oo aanay qalbigana hurinin madaxweyne mar dambe yaanay TV-da nagala hadlay wixii waa la soo dul istaagayo waa khalaas baa la yiraahdaa wallahi waa khalaas niyad ahaan baa qofku sii soconaya markaad qof xanuunsanaya u tagayso hadalada quusta ka ilaali madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya hadalash gobonimo badan buu shalay ku hadlay maamul xumo iyo adeeg xumo cidna loogu joojin maayo ama loogu dul qaadan maayo ka mid ah hadaladiisa madaxweyne waa gobonimo rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayaa lagu yiri rasuul allah ayu an-nas ashaddu al-balaa dadka yaa loogu imtixaamid badan yahay nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله سبب الفلاح في الدنيا والآخرة ولا ليال قف كستو تاجن من بركي وكقد بديني نبي محمد عليه الصلاة والسلام waxaa la gudboon hadalkiisa ugu horeeya ee ugu dambeeya intuu minbarka saaran yahay inuu noqdo inuu qof naftiisa iyo nafaha uu la hadlayaba uu Ilaahay xasuusiyo walaalayaal Allah inuu xasuusinayna jalaaladiisa iyo cadamadiisa inuu xasuusinayna weynidiisa ayaynu xasuusinayna Allah qaadirka ah inaynu ka haybadaysano ka baqanno u tulanno maalin aan maanta ahayn inaynu u tulanno ayaynu xasuusinaynaa maalin afaraad leeday ka tagi doonaan magac baad leedahay hanti baad leedahay hoy baad leedahay hu baad leedahay oori baad leedahay intaas ay ka tagi doonaan magacaagi marxuum isku bedelayo hugaagi laba maro cadcad isku bedelayo hoygaagi xabaal 2 mitir isku bedelayo ooridaadina maxay heeday isku bedelayso maxay heeday gabadh asay ku qaada xoolahaaga dhaxal isku bedelayaan maalintaas aad jirtay maalinta eego hugaagu waxa ku asturaya waxa ku meel maraysa waxa ku maxay ku badbaadaysa amalkaaga uu noqonayo xoolo aad lahayd aanu hayn ubad aad lahayd aanu hayn magac aad lahayd aanu hayn masabaad siday aanu hayn laakiinse aad ku badbaadayso amalkaaga ka walaal maalintaas ay ina sugaysay maalinta qof walba u meelday adigoon cid kale eegay adigoon cid kale xisaabinay adigoon naftaada xisaabinaya ilaahay sideed isku tihiin wuxuu ku faray sideed isku tihiin wuxuu ku yiri ka tag sideed isku tihiin wuxuu ku faray ma sameeysaa wuxuu ka nahiyay ka joojiyay ma ka tagtaa inta uu naftaada la xisaab ka walaalayaal ugu horeyn waxaynu xasuusinaynaa waa ilaahay subhanahu wa ta'ala waa qabrigeena xasuusinaynaa in leena aynu meel dayan tani waa maalmo inta nooshahay waa maalmo waynu ka tagaynaaye taana aynu meel dayno walaalayaal nolosha adduunyo waa mid imtixaana daarul ibtilaa cid baraaro ugu waaraysaa ma jirto marka imtixaanku laba u dhacaa xoolaa lagu imtixaamayaa marna xoolo la'aan baa lagu imtixaamayaa oo saboolnimo ayaa lagu imtixaamayaa malxil iyo mas'uuliyad baa lagu imtixaamayaa oo nin madax dhaqameed tahay
oo nin maamulaa tahay shirkad u taliyaa tahay hay-ad haystaa tahay iskuul haystaa tahay wasaarad haystaa tahay madaxweyne ah baa tahay xilalkaa kala duwan baa tahay marna raaciyad baa tahay labadaba waad imtixaamata mar caafimaad baa lagugu imtixaamaya ninkaa turuqyada waaweyn baa tahay laxaadkiisu dhammaystiran yahay baa tahay aan waxba ka cabanayn baa tahay marna xanuun baa lagugu imtixaamaya marna xanuun baa lagugu imtixaamayaayo xanuunkaa iyo sidaad ugu sabirto ayaa la eegaya xaaladahaasi kuma yimaadaan walaalayaal in allah subxaanahu wa tacaala addoommada uu necab yahay uu ibtileeyo nacayb maaha cadaawad rabbi maaha balse waa imtixaan intan kolba sidaa aad ka yeesha ah ilaahay wuxuu leeyahay alif laam miim xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun dadku ma waxay u malaynayaan intay ashahaataan inaan la jirrabi doonin la imtixaami doonin maxay hayday iimaankooga maxay hayday lagu imtixaami doonin maya waa la imtixaamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waa la is-imtixaamaya walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsi min alamwaali waalanfus walthamaraat ilaahay wuxuu leeyahay waxaa la idinku imtixaami doonaa oo la idinku jirrabi doonaa cabsi gaajo xoolahoo taga dadkoo geeriyooda beerahoo baaba'a xanuun baa la idinku imtixaami doonaa dadka intaa u adkaystaa wabashir الsaabiriin u bushaaree dadka adkaysta ee u adkaysta buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay markaa imtixaanku wuu fara badan yahay adigoo wax isugu geegeeyey isuukaa toosantay baa la dhahay wallahi kii wuu kacay meheradday way xidhantay ganacsigii wuu baaba'ay shirkadihii way baaba'een way kaceen beerihii way baaba'een dal nabdoonaa xasilloonaa ayaa afweynta loo rogayaa khawfku ilaahay leeyahay reer badnaa tobaneeyahaa ayaa geeri lagu sallidayaa si tusbax furmay bay noqdeen baa la leeyahy waa imtixaan rabbi adigoo xoog weynaa oo caafimaad qabay oo dad u qurxoonaa ayuu xanuun rifan iyo lisan kugu ridayaa waa imtixaan intaa markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo tiriyey wabashir الsaabiriin buu ilaahay leeyahay u bushaaree dadka alleh u samray imtixaankaa ilaahay mariyeyna maxay heeday ugu samray walaalayaal khudbaddeenna maanta si kooban waxaynu uga warramaynaa xaaladihii maalmihii dhaweyd taagnaa dadkii aynu arkaynay ayaynu si urursan uga warramaynaa markaynu mimbarka taagannahay sida golayaasha uga warrami mayno sida tiifiyada iyo social mediaha looga warramo uga warrami mayno waayo mimbarku ixtiraam buu leeyahay saddex qodob baynu ka warramaynaa kuna soo urursanaynaa waa koowaade dadkaa xanuunsanaya ayaynu alla xusuusinaynaa si ay ugu sabraan waa marka labaade dadka xilka u haya ee ilaahay baday ayaynu iyagana ilaahay xasuusinaynaa waa marka saddexaade innagaa ilaahay is xusuusinaynaa markaan mimbarka taagannahay if iyo aakhiraynu isku xidhaynaa nolosheenayna ilaahay ku xidhaynaa markaa yooyootami mayno isdhaleecayn mayno iscaayi mayno laakiin adduunka inaynu iska saaraynaayo bal bankii qiyaamuhu maynu yar isgeynaynaa xaaladaasu maynu yar istahabsiinaynaa waayo ilaahay baa ka warramay marka haddaad xanuunsanaysana abaalkii ilaahay baa kuu yaalla haddaad jaranjarooyinkan hesho haddaad kuwa xanuunsanaya kii lagu imtixaamayay tahayna adiguna saad kolba doorkaad ka qaadato ayuun baynu isaga warramaynaa wixii ilaahay yidhi marka waa khudbad jimce oo if iyo aakhire isku xidhaysa ka xanuunsanayana ilaahay xasuusinaysa ka maamulayana ilaahay xasuusinaysa innagana ilaahayna xasuusinaysa marka waxaanu leenahay dadka xanuunsaday ama keliyuhu ka cabanayaan ama xanuuno fara badan maanta way jiraane si uun xanuun u hayo
حنونكينا كالصبرة وهدي آد صبرتان إلهي باد أجر كجهليسا وإلهي سبحانه وتعالى وكاك صور رميا إلا وبشر الصابرين تدك امتحان كان مريه كصبرة وبشارة وإلهي سبحانه وتعالى بشارة دي سبحانه قنيسا مركا بشارة دا سين دور سقط عبرنا ولا ليا رسولك عليه الصلاة والسلام وحاوليه ما يصيب المسلم من نصر ولا وصل ولا هم ولا حزن قفك مسلم كأحمد تابته مروقه ما تابته عذر ما تابته وربهال ما تابته اسكدا يقود حمام مدو هدي انتاسي اي تابته أبالك إلهي سبحانه وتعالى وحويه إنه إلهي دنبيديسي كدافو marka dadka xanuunsanaya ee xanuunada kala duwan hayaan midba meel ka iigan yahay waxaynu leenahay bushaaradaas aad haysataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam leeyahay qof wax kuma dhacaan oo cad cudur ma haleelo oo caydnimo ma haleesho oo maxay heeday walbahaarnimo iyo balaayo kale ma haleesho haddii intaasi haleesho oo uu ku sabro أو إلهي سبحانه وتعالى تلصارته إلهي سبحانه وتعالى وحو أبال قدا إنه دنبقي صدافه كا حنون كاغا هكوهانين وحن محي قد عين هاورانين كواسي بس كوا عافمات قبا هاورانين كواسي بس كوا تاهيا هاورانين إلهي باكو قدري قدر كاكو صبر إلهي سبحانه وتعالى وحد كوهلي دونتا إنه كو دنبدافه إلهي سبحانه وتعالى إنه أنتو راليه كم من نقطة أيات كهلي دون تاولال هدي آد كو صبرتو أو حنونك وكو آد كو صبرتو بشارك كلاد إلهي سبحانه وتعالى معي هدي وكو هيا رب سبحانه وتعالى وحليه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تدك كو صبره جربت الله سيو حنونada ku dhaca iyo imtixaanada lagu salido abaalkoogu waxa weeyaan inay janno galaan biqayr xisaab yago aan diiwaankoogaba la kala furin oo la oran tanaad samaysay taasaad samaysay in la yiraahdo biqayr xisaab jannada gala maxaad ku mutaysanaysaa xanuunka ku helay inaad ku sabirto marka walaal bushaaradaas oo idil ayuu nabigi ku hayaa oo rabbi عسى وجل oo cid ku bushaaraysa ugu mudan ahi ay ku haysaayay ku sheegaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu yiri rasuul allah ayu an-nas ashaddu al-balaa dadka yaa loogu imtixaamid badan yahay yaa loogu dhibid badan yahay yaa maxay heeday dadka imtixaanka iyo jirrabida iyo culayska adduun iyuu ugu badan ku dhacaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri الأنبياء نبيده دبتي لا سو مريي عيد بلا ما مرين يغا ويان بو يري يا كخيغا انت وناكسن يا كميد انت ku sabirta xanuunka marka hadii aad xanuunkii ku sabirto waxaad soo fuulaysaa la darajo noqonaysaa darajada anbiyada ku xigta maxaa ku haya waxa ku haya xanuunka aad ku sabirto oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qadarkiisa aaminto oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad celiso dadka xanuunsanaya ee isbitaalada jooga hadii aad la sheekaysato wad yaabaysa alxamdulillah bu kuleeyay ilaahay baa qoray waa wax weyn waa iimaankoogu qajuu jooga ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ha ugu bedelo walaalayaal waxaynu leenahay xanuunku hadii uu in yahay ama ay saayn sheegayno aanu wax wanaagsan oo ama aan ilaahada sharaf darro yahay laguma imtixaameen nabiyadii ilaahay dadkii allah ugu jeclaa laguma imtixaameen laakiin mararka qaar waa jirrabid aakhiradaada wax ku taraysa dambigaaga lagu dhaafaya oo darajadaada iyo maqaamkaaga kor noqonaya oo waxaad la maqaam noqonaysaa nabiyada iyo darajooyinka ku xiga biqayr xisaab baad jannada ku gali doontaa oo ilaahay kula kulmi doontaa
oo il naxariis la kugu eegi doonaa oo intuu jecel ka mid noqon doontaa oo safkii wanaagsanayaasha ahaa ee inta wanaagsana baariyiinta aad kaga mid noqonaysaa marka sabirkana inaad ku dadaasho ilaahayna aad tiraahdo ilaahay u bagsi oo ilaahow caafi oo ilaahow xaaladan aan ku jiro xaalad dhaanta igu bedel maxay heeday ducadaada lagu aqbali doonaa haddii aad sabirto qadarka rabbina aad ku qanacdo marka waxaynu isku dardaaraynaa oo in walaaladan ugu dardaaraynaa marka koowaad inay ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saartaan baryadooda ilaahay ay baryaan kuna qancaan qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala labada daaroodba wuu ugu nimcayn waxay tahay inaynu dhigno booskii aad jeclay in lagu dhigo booskaad jeceshahay inaad isdhigto ayay tahay inaad kuwaa dhigto haddii aad kuwa halkaad aduu isla jeceshay aad dhigi weydo iimaankaaga ayaa been ayaan waxba ka jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay laa yu'minu axadukum xataa yuxibba liakhiihi maa yuxibbu linafsi midkiin iimaan ma helin oo iimaan ma leh ilaa uu la jeclaado walaalkii wixii uu naftiisa la jecel yahay marka iyaga nafteena caafimaad baynu la jecelnay caafimaad waynu la jeclaano inaynu isu ducaynayno isla jecelnay iyaga waynaynu ducayno ilayna xaq dhowraynu jecelnay waa inaynu xaq dhowrno hadallada qallafsan ka ilaalino oo sidii aad jeclayd in aad lagula dhaqmo aad iyagana ula dhaqanto midda labaad dadka xoolaha ilaahay ku manaystay ee tujaarta waxay tahay inay gacmaha u furaan oo jeebadaha geliyaan oo ay dadkaasi sare iyo si hoosaba uga warhayaan dadka xaaladahooga aad arkaysaan qaar baa jira aan quudka helin qaar baa jira aan dawooyinka iibsan karin qaar baa jira xaaladahoogu ay ildaran yihiin marka inaad kuwaana si hoose iyo si saraba aynu ogaano oo ninkii qof maalin ku bixi kara oo dhakhtarada soo booqdo oo mid dawo la tacaalaya oo dawo la'aan hayso ama maalin dagaalkiisi hayo maxay heeday aynu si hoose u ogaano haddii aynu taa samayno maxaynu helaynaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay man nafasa can mu'min kurbati dunya qofka ka dulqaada qof muslim